gabagabeeya qaybteena ugu dambeysay maamaha oo ah raggu sidee bal hadda ugu qiil banaystaan markay doonayaan dumarka inay guursadaan qayb waa qayb dulmi ah qaybna waa qayb khaldan runtii adarka sayna khaldantay bal xabad ay isu taago aan soo qaato maamahda koobaad waxay tiraahdaa quruxdeeda wuxuu dhimay qadaad ku rita maxaa looga jeedaa waxa looga jeedaa ninka gabadha quruxdeeda wuxuu dhimaa gabadha quruxdeeda haddii wuxuu dhinto adigoo nina oo soo ugu dhinto nabar aad ku dhufato ama wajiga ama gacan ama lug nabar xun aad ku dhufato ka muuqdo inaan taas haddaad ku dhufato iyo haddii aad kufsato labadaba samayso adaa ku guursanaya qadaadka adaa u ridanayo adaa qaadanaya adaa guursanaya hadda bal fiirso dadka qaar baa marmar waxay yidhaahdaan mayma kufsiga laga hadlaya kufsiga waa laga hadlaya waayo waxaa looga hadlayaa quruxdeeda wuxuu dhima baa jiri quruxdeeda wuxuu dhimada maxaa ka mid ah physically da quruxda way jirtaa oo muuqeeda hadda wuxuu dhinto waa sax quruxdeeda kale waa maxay dee waa quruxdeedii kale sharafteeda waa quruxdeedii kale sharafteedii iyo karaamadeedii iyo magaceedii marka kustaad wax yeeshay adaa guursanaya soo ma aragtid marka eeg ninku inantu nabarka uu ku dhuftay halkii la ciqaabi lahaa oo la odhanaa waa ninka waxa la ciqaabay ilaa crime buu geystay ayaa la odhanaya crime buu geystay may waxa lagu leeyahay oo asturadu adaa asturaya oo maxaa la asturaya meelinta la dhaawacay waay ka kufsadana dawaynu naqaanaba haddaad gabadh kufsato waa lagu guurinaya taasi meenay fududayn marka kufsiga inuu bato taasi meenay fududayn hableen la dhaawaco tusaalaan ku siinaya cad haddii maanta adigoo meel Soomaaliya ka mid ah aad joogto oo aad gabadh la sheekaysato oo gabadha aad ka hesho quruxdeeda iyo muuqeeda iyo dadnimadeeda iyo akhlaaqdeeda iyo wax walba oo inta la sheekaysato ay ku diido oo aad ogtay adiguna danseeg baynantay inta guurkeedu inuu fudud yahay soo magacada guursata aad buu ugu fudud yahay Soomaaliya waayo oo kufsanaysa haye intii buu kufsanay markuu kufsaday ilmaadaradii u tagay waliba reer weyn buu ka dhashay ilmaadarada inay taasa ka dhacday bas waa la baxso meel baa la geeyay maxaad sameynaysaa bal walaalkeeda la dhashay waxa sameyn karta sheeg waxa sameyn karta ma jirto waxaan u sameyn karaynin dee xeerkii dhaqanka bay loo yaala haddii aad reerkii u tago weerar deeyana way ku weerari nin baad ka dili way ka dili mid kale ka dili aan goos ku mayman dagaal u bilaabmay waad ogtaa maxaa markaa ku yaala kaliya inaad samayso waxa ku yaala inaad aqbasho inaad dee laasto ilaa adiga idin la kufsaday baad ceeb ka dhigtay xaqu karaam haybaad ceeb ka dhigtay Soomaa okay inta sidii ku helaya ayna fudud ogtaa waa sheeko cad marka quruxdeeda wuxuu dhima qadaad ku urita waxa bay fududaynaysaa wariyaha hadda doonayso gabadh inaad guursato ama nabar ku dhufaamo kufso xaaskaga noqonaysa bal cadaalada oo fiirsada iyo hablaheeni inta waxayna ogeeyro dhan inta lagu soo yiri lagama xarine imikana waxa loo diyaariyo la yiri gabadhani maadaama de nooca ay iska tahay dee haddii ay ku yiri kugu adkayso ama dhaqaale aad u weydo dee kufso mar kufsana iska ka raacaysa ee dhaqanka ku ogolay waxa laga yaabaa badan ka gubtaan ama ka codaan marka cayn kale laakiin ma been ma sheegay xabad beena hadda ku daraa lagu qabsado xabad beena ma sheegin haddaad gabadha kufsato waa lagu guurinaya halkaas inuu taaganahay oo kuwa mahmahayni laynagu yiri waa xigmad oo waa mahmaho murti xambaarsan oo leeyahay Soomaalidu been ma sheegtay been way sheegtaa been ma mahmahdo waa kuwa iyo raggii hore baa khatarta ah inay rag waa raggii hore hadalna waa intuu yiri waa kuwa hadalka yiraahdeen raggii hore sheegaysa hadalna waa intuu yiri oo waxa way hadalkaas intuu yiri baa hadalka ku xidhan yahay waa kuwa waxay yiraahdeen mahmahda ku xigta soo qaadanaya waxay yiraahdeen meel xinjiri taalo xabnaha yaalo hadda baro fiiso waa mahmahdani waxay ka hadlaysaa wax la yiraahdo godob reebtu waxa weeye nin baa nin soo dilaya hadduu doono ninka soo dalaba ha u dilo waxa laga yaabaa si kibir ah inay isku cadhoodeen inuu si kibir u dilay isagoo ninku aanu soo weerarin oo waxba ku sameeynin oo maalkiisa iyo maxastiisa iyo naftiisa midna aanu ku soo weerarin ninkii dilay markuu ninka dilo sidoo dalaba ninka ha u dilay dawayna uu soo baxsanaya reerkooda dabada gelinaya waa laga daba imanaya labadii reerood bay soo fadhiisanaya waxa la leeyahay magti baan xubnaa nimana laga dilay magta marka reerka la siiyo haddii reerkaasi magta ay ku yara qarci waayaan ama weli la arkayna cara ka muuqato waxa la sameeyaa ninka wax dilay walaashi ayaa reerka lagu daraya oo la oranayaa si caradu idinka baado oo reerka caradu uga baado inanta aynu raacino waayo hadday caradu ka bii weydo dee argos bay sameeyeen wax bay dilay markaasi magta la siiya inana ugu dara inanta waxa la godob reeb godobtii aanu galay baa lagu reebaya waayo inantu dambi ma jirin waxba ma geysan
meesha wax lagu dilay may ogeyn wax la isku dilay may ogeyn ninkii wax dilay halkan buu fadhiyo ka quslaya isaga waxa la leeyahay wax ku dhacay ma jirto lacagta magta la bixinayna aabihii baa halku daraya oo isagu shirka bixi maayo hadda bal fiirso marka maxay yiraahdeen meel xinjiri taalo jirto waa ninkii la dilay xabnaha yaalo xabkuna waa maxay waa gabadha markay umusho waa xab ayaa imanaya soo maaha haddii dhiigba meeshii uu daatay waxna ku dhashaa bal cadaalad darrada intaa leegay maxaa ka soo horjeeda aayaddii ilaahay inoo sheegay oo ilaahay yidhi nafna naf kale dembigeeda kama mas-uulaha adduunkaa horu maraanu joognaaye dunida reer galbeedku hadduu qof dilo dee walaashii shaqa laguma yeesho qofkaas aabihiina lagu meeshay isagaa la soo qabta diintii islaamkuna waa sidaa balda soomaaliya u fiirso inantaa la raaciyey marka la raaciyo reerkaas waxay raacaysaa reer cadhaysan oo inankoodii la dilay marka la dhex geeyo dee inanta sharaf laguma soo guursanin bal godob reeb inantu hadduu isu waaliya ninkaa qaba hadduu wuxuu doono sameeyo isma dhaqaajin karto hadday noqoto waxaa la leeyahay godobtii meeshii bay taalla say ula dhaqmayaan ninkii la dilay hooyadii baa joogta walaalihii baa jooga saa loola dhaqmaya dhaga hadalka ku dhacaya iyo sida loo galaayay hadda baro fiirsada hataa cadaaladii mahmaheenuna waa kuwa mahmahda ku xigta mahmahdana waxay tidhaahdaa dheri iyo naagatoona yaryaraysi male mahmahda waxaa samaystay rag soomaaliyeed waxay yidhaahdaan sheekada markay ka sheekaynayaan islaan ayaa ina yaray dhashay oo caruur ahayd ayaa sheeka balelay waxba kama jiraan mahmahda rag baa samaystay markaase waxay u sameeyeen sheeko yaroo background ahoo oo khayaali oo been ahoo kutusayso ku odhanaysa oo yani kutusayso inay dumarku yidhahdeen no haddaanu yaryar nahaanu nahay caruur yaryar waana la guursan karaa no waxaan ka hadlayaa no waxaanu leeyahay sheekadaa beena la samaystay mahmaada rag baa samaystay waxaanay u samaysteen hablaha yaryar ee caruurta ah guurkooda in lagu xalaashado inan yar anigu diiniya dee marihii waa xaaraan no ma odhanaya taa laakiin waxaan ka wadaa inan yar oo sabi ah oo ilaa waxa weeye inantu hadday jir ahaan u diyaargaroodo inay wax dhasho daadmeynas maaha inay guursan karto يعني عقلي iyo mas'uuliyadii reerka ayaa loo baahay qofku inuu yeesho macadiniya mas'uuliyadii reerka ma qaadi kartaa wax la eegi maayo inanamadii ma buuxsatay dhari iyo naagatoona yaryaraysi male yani wax weeye dharigu iyo gabadhu waa isku mid dharigu wuu xijistay ila way xijisaysaa wax walba no ma xijisan karayso mas'uuliyad haddaanay lahayn ay ubad ku koriso oo ilmo ku koriso dee guur ma geli karayso ila runtaa fiicane caruur korinaysa way say caruur korin iyadii baa caruur ahayd taasaa la doonayaa in la xalaashado markaase waxaa lagu leeyahay ninkow ha ka baqanin ha odhan way yar tahay may waxaa is odhan waa ina yaroo malaa guurba ma geli karta iyo dee hawlo kaloo fara badane oo way gelaysaa kuwood baa lagu leeyahay waa maamaah ay raggu samaysteen oo inaga laynooga dhigay haweenna samaysteen waxaa lagu xalaashanaya hablaha yar guurkooda ee aan garaadkoodii weli qaan gaadhin mahmaahda ku xigta sarar iyo sakaarshiil odaybaa sareeda leh sarar iyo sakaarshiil odaybaa sareeda maxaa looga jeedaa waxay uga jeedaan odayaasha waaweyn markay doonayaan inay hablaha yaryar guursadaan ayaa waxay ka marayaan xaggii dhaqaalaha ila waa nin weyni kariyo dhexda jiro weligiiba soo shaqaysanaya daaba geel dhaqanayay marka wuxuu tusayaa oo inanta yaray leeyahay odayga weyn baa kugu dhaqaalo roon markay guud noqoto ina yar waxba ha raacin odayga weyni wuxuu taa u leeyahay oo u qarsanaya wuxuu og yahay inaanu nolosheeda kafayn karaynin inaanu ahayn da inanta yar guurkeeda iyo mas'uuliyaddu ilaahay saaray iyo waajibaadku guurkuna hadday kama soo bixi karaayo wuu ogyataa maadaama uu og yahay uu fikro wuxuu isiri waxaasoo dhan ilaa waa isukiro codad baa hayso og inaanu ka bixi karin waxaase maxaad kaga bixi kartaa 40 haraad iyo dukaanka yar iyo waxaad samaysato kaliya ayuunba maanta ku itaala wax kale meesha kuma haysin intaasun tus intaasina inanka yaraa way ka maqantay isaga hadduu doono laakiin inanka yari intii kaloo dhan iyo mas'uuliyadda kaloo dhan wuu buuxin karaya dabareeg marka hablihiiba waxaa la leeyahay maadaama inan yar tahay waxaana lagu soo akhriyey maamaahii oo dhan oo lagu soo shubo la diyaarsaday dee caqligeedii ayuu wuxuu tusayaa ayuu leeyahay odaybaa sareeda lahoo dhaqaalo odaygu haya laakiin noloshu dhaqaale ma aha noloshu shilimaad yaryar way ka weyn tahay guurku wuu ka culus yahay wuu ka ballaadhay adduun lama waayo ilaahay baa kira laakiin odaygu markaa muxuu wadaa taasi waxay ku cadaynaysaa meel kaluu ka nool yahay baan jirin wax kaloo hayaan haba yaraatee jirin مسؤوليتي إلهي كربي لحيل باقصارنا مسؤولية باقصارنا إنت مسؤولية باقصارنا إذا مد باقصارنا ما قول كان السواج كاري ما دام أنا قول كريدين إن أنت لا أوقات هني كوسو راعين أيو الدنيا إنه يلهدو نقارة يوتصل أو طمعه إنه حبلا إير مسكحة لقى قادر أن ولي
hadda bareeg weli maskaxdoodii aanay korino rag aan weli kala aqoonin ayaa maskaxda laga kaxadaya mahmaada ku xigta ninkii gabadh dhali karaa ayaa dhiqi karaa tanna waxa weeye waxa lagu xalaalsanayaa hablihii yarnaa guurkoodii nin weyn ayaa doonaya inay yaran ku khiyaameeyo dhiqitaankaaga waxa u wanaagsan nin weyn baa ku wanaagsan nin weyn si wanaagsan buu ku dhaqanaya laakiin halkan maxay ka wada inamadii yarnaa lagaga eryanaya la leeyahay ninka weyn ayaa kaaga fiican laakiin waxba kama jiraan waxaanay uga jirin da'da qofku mas-uuliyad ma sheegto da'da qofku garasho ma sheegto da'da qofku wanaag ma sheegto waxaa jira qofku sidiisaba dabeecadihiisa ku xidhan tahay rag waaweyn baa jira oo dabeecad xun oo qayrulmas-uula ayaa buuxa aynu garanaynaa niman yari oo dhalinyaro ah oo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo garashadooda iyo mas-uuliyaddooda buuxdo ayaa iyaguna jira marka mahmaadan marka la keenayo ninku wuxuu leeyahay nin gabadh dhali kara dhiqi kara waa runta dhulka gabadh haddaad dhasho dee micnihiisu maaha waad dhiqi karta maaha boqolaal Soomaaliya baynu hanaa inta wax dhaleen habloodii yarnaa kuway dhaleen bay macaa maamul ay mas-uuliyadoodii qaadi waayeen hadda bareeg marka da' baan jiraayo qof weyn baan ahay oo adduunka waxaan joogay 60 sannadood ama 50 sannadood baa adduunka joogay sidaa aawadeed 50 sano maadaama aan joogay mas-uul baan ahay 50 sano mas-uul kaa dhigi mayso da' mas-uul laguma noqdo da' waxa lagu noqdaa dabeecadaha iyo garashadaaduna dee awlu markii aad yarad haddaad nacas ahayd dee waxaad noqotay uun waxaa kugu jirto nacasnimo 50 jirtay waa nacasnimo gaamurtayba waa nacasnimo 50 sannadood jirto khabiir baabay ku noqotay doqonnimadii marka 50 jiradaada maxay taraysaa mahma talabaad mahmaadan maxaa loo odhan waayey ila waxaa la ninkii gabadh waay dhinaca kale u rog gabadha iyaduba ninkii gabadh dhali kara dhiqi kara gabadha iyaduba nin dhali kartaa miyay dhiqi karin gabadha nin hadday dhali karto way dhiqi kartaa iyaduna soo maaha hadday gabadhu iyo 50 sano jirto dee nin dhalinyaro way dhiqi kartaa waayo way dhali kartaa way soo dhashay aduna waad soo dhashay maxaa hablaa looga reebaya maxaa dumarka loo leeyahay iyaga inama yar ma guursan kartaan dhaqankeena lawaba ku ceebo idinka arkay gabadh weyn hadday doonto raggaa kala tageen baa lagu leeyahay inay yar ma guursan kartid habluhu iyagu hadday doonaan iska diidaan waxay yidhahdaan ba malaa mas-uuliyaddiisa haba diidaan balse laakiin waaba loo diidanyaba dhaqankaaba ceeb ka odhanaya ma ilmo yar baa doonatay ceeb maxayna ka yar ku geeyey laakiin ninku isagoo 50 jira ayuu guursanaya inay 16 jira ama 15 jira no waaba lagu faanaya Soomaalida halkaan cadaalad darrada ku jirtay khaladka ku jira mahmaada ku xigta farda iyo haween hooda lagaga noolyahay waxa looga jeedaa Soomaalidu fardaha markii bariga hore waxay u isticmaali jireen badanka dagaalka iyo markii safarka dheer galayaan waliba dagaalku u badnaa marka farduhu marka dagaalka lagu galaayo farduhu way kala hoodo fiican yihiin bay oran jireen hoodiyo nasiib kalbada waa taqaanaa yani way kala hoodo fiican yihiin oo faras baa يعني مركي شريحي كده وين بيكون يقول نصيب بدي وهو ذا بدي يحي قطعك ما دام أي ساعة حي أو فرس كاو فرداك على وحبابك كمان ولا سريع يعني هو فرس حاضره هذا بالك والنصيب بدن أو يعني إن هذا ضايع نصيب كاو ولا هيبو كله يحي فرداك عليه دمر قناع لكن فردوا اسكبت دمر قناع يبغى هو محي والدمرون أصلا بيخربين أصلا بيجين لكن متبع هذا إسكاله طبعاً هو معي نصيبك كوسو بيجاي نصيبك كوسو بيجاي لبضة بقى واحد الحوران كرو أو سي معقول هو يعني عقلي يا جرات كذا سبب بعض يقول حوران كرتها ويكون يري ينوع معي التعدي لبعض أو كنت صايع حبلها هي فردان الأسباب اللي يقول لي هذا فرس كنا حاضن بالك يقول لي قدام مركز توقع حسبته كي نصيب له ويه قبل نواتي نصيب له وحاجة الجديد يوم تقعنا فريد مدو ديو ضد مدو ديو ونا جودي أقوته ديو كرتيدو ده يكون كله حريان بال أيال الجديد حركة واحد نقول صار معي صدم كي مهما هاد الصومالي جاها المانتا إنه بتركش بحنا صدم كاسبة أمرين مايو إن نصير راعينا أيو إن هي الدم بقى شرح هذا وإنت هسي أنا جافرا واحد كسر جنانا ديه waxaan ku tusayaa in raggu ay sameystaan ereyada noocana ayaa waliba waxa la sameeyaa mahmaha ragga oo dhami ma hayna wada wanaagsan yihiin laakiin mahmaha dumarku leeyihiin marka dumarku mahmuhu leeyahay adeegto inta xun baa badan ee dumarka loo sameeyay waxaan la arkaysaa ereyada macaa Soomaaliga maalin kala gali doona laakiin iminkan in yaridiisi sheegaya talabada soo wada waxa weeye ereyada Soomaaliga ee rag iyo dumarku ay ka siman yihiin أيام حالة سماية تيجي بركة سر الله قاضي عان لقى رجع ترجع نوال قرينية
طبعا سمع حي سي هبلا لو كرباشو ترجع لو قريو oo labadii qof ee inankii inantii sinaa ee isku midka ahaa ee isku astaanta ahaa ee si walba u sinaa in markay wanaag tahayna ninkaas sare la marinaya oo wanaagii inta la qarinaya labada qof markay sameeyeen ama negative ku jiro ama wax xumaanti ku jiraana ninka la qarinaya inta sare la marinaya bal waan ku tusaya imika waxaad eegtaa gabadh baa nin guursatay ninkiiba ilmo u dhashay way kala tageen samaha labada qof marka ninka la weydiiyo de waa uu soo guursaday ilmo leeyahay gabadhuna way soo guursatay ilmo leeyahay labada way kala tageen gabadha waxa lagu qorayaa waa armar waxa lagu qorayaa waa garoob waa sax ninka maxaa la yiraahdaa haddaad weydiiso dhalinyarta waxaan arkaya barnaamijka dhalinyarta lagu weydiinayay cid taqaanaa ma jirto waayo ninku magac buu leeyahay gabadhuna magac bay lahayd kiniga maxaa qariyay maxaa garoob iyo loo garanayaa inta marka lagu leeyahay war kale waa garoob inantaasi haddaba leeg maxaa iyadoo magaceedii cid walba u garanaysaa ninkina loo garanayo waa maxay haddaan maanta idin weydiiyo badankiinu ma garanaysaa ninka garoob lama yidhaahdo waxaa la karin la yidhahdo ninka waaye karin le iyo garoob way siman yihiin hadda soo maartid karin iyo garoob waa laba darajo oo siman oo ah waa qof soo guursaday nin soo guursaday waa karin le gabadha soo guursatayna iyana waa garoob ama waa armar soo maaha waaye karinlihii baa la qariyay karinlihii baa laga joojiyey isticmaalkii bulshada ayaa laga yareeyay si aan dadku u baranin marka maadaama ninkii aanu magac lahayn waxa lagu leeyahay dawani gabadh soo guursaday isagu magac ma laha waayo isaga maxay isbedelay oo gabadha maxay isbedelay iyo wuxuu ma dhashay isla u dhalay maxay isbedelay no marka taasi maxay samaysay karinlihii ninkii markii magacii laga reebay wuxuu noqday caadi normal baa laga dhigay ninkii caadiga dhalinyarada habu la mid yahay waxba kagama duwanatay laakiin gabadha markay guursato waxa lagu leeyahay la yiraahdo armal iyo lagu badiyay iyo garoob kalmadii markii la badbadiyay ayaa maxaa la yiri darajadii way ka hoos martay inantu lahayd laakiin ninku hadduu macaan soo guursado wali darajadii inuu ku taagan yahay dulmiga soo maaragtid maaragta ereyadaas maxay ku tusayaan ereyada bulshadu markay isticmaalaysa cid la ciqaabayo ayaa af Soomaaliga luqadda loo fiirsadaa luqadda kanina waa la qariyay garoob ayaa dusha la soo mariyaa ma armo markaas negative loo sameeyay waadiga arkay oo odayaashu inta hablaha u yimaadaan ku oranayaan hadday imka wadiga carmariyay leeyahay ma tihiday waa la niyad jabinaya waa been waxa la leeyahay ka jira ma jiraan sidaadii baa tay gabadhay waxa la leeyahay qiimahaagi adeeg ku xirantay qiimaha aad soo yeelaysaa ninkina waa ka bal ereyada Soomaaliga ah ee ku tusayo tacadiga lagu hayo haweenka ereyada la qariyo markay wanaag tahay busad fu noqotana karaga la dumaraya taynanta la qarinaya hadda way simeeyeen wanaag bay u sinaayeen taynanta waa la qariyay karaga dusha la mariyay markay negative noqoto negative meesha soo gaana taynanka la qarinaya sida armasha iyo karin laho kale kaana insha Allah barnaamijkan ku samayn doonaa halkaas waxa maanta inooga soo baxay sodonkan mahmaahood tacadiga lagu hayo haweenka Soomaaliyeed mahmaahuna waxay xambaarsan yihiin xigmadii ummadda Soomaaliyeed waxa la xigmad iyo murti aataa murtideeni aataa hablisa u baabisay hablahana waxaan leeyahay umaran ma yeerinaan aan ku sii daray meesha inuu yaalo bal maamaha dhageysto oo gabadh walba wixii kaaga soo baxa ay bad ku dhaqmi doontaa. Assalamu alaykum.